مسؤولين وهجامين وزير كحفيز كإعلان تدقان كي يمام الكردول كميجا وزير كحجين كحفيز كورمرنت خيرات كحول دقتدا يحمنا كله وكويلين إسيايا سكر مري وحصار كدلجة بيرها نوعية شكل دون دقمة مويا لقبل كان دوا هذا بكرمر كان عياها مد بيرليد لوجودي رجلين وحصار ككل دون دلجة بيرها وجهرين وزير كحفيز كإعلان تدقان كي يمام الكردول كميجا إنجنير محيدين عبدي يصدق كله وزير كحجين كحفيز كورمرنت حول دقتدا دكتور محمد قاعل ورباهنت الدولة دقان كصومالي SRTV ورمي أيا كور بحية قرشاء الدلق يدريال أي حكومة الدولة دقان كصومالي قادتي سامودو أكسونا هاي سنة كان حكومة دين وحي حوق ساريسا سيدان أقفا إذي سن لهين waxsoo saarkayaga dabiiciga waxsoo saarkayaga dabiiciga markaan leenahay waxaan wada ogsoonahay sanadkii iminka bilowgiisii inayna soo food saareen ama aan soo marnay marxalada aad u adka annagoo tii ka duulayno ayaa xukuumadda waxay si guud u qaadatay inaan ka faa'iideysano dhulkeena aanan hadda kadibna u baahanin wax dheeraad ah oo naga yimaada wadannada kale sida dalalka qaar ay ku talaabsadeen oo kale waxaan wada ogsoonahay abaartii sanadkan dhacday dhulalka ugu badnaa ee ay saameysay in deegaanka Soomaalida uu ahaa tii annagoo cashir ka qaadanayno ayaa xukuumadda waxay go'aamisay in sanadkan la xoojiyo dalaga wax soo saarka waxa la aas-aasay team la yiraahdo teamka dalaga iyo daryeel teamamkaas oo ay hogaaminayeen xukuumadda qaybaheeda ugu sareeyay maanta waxaan joognaa degmada la yiraahdo Mooyaale ma laha wabi laakiin sida noo muuqata dadkeena waxay u baahnayeen kaliya in la soo riixo oo la tuso waxa ay qabsanayaan waayo waxaan soo aragnay degmooyin badan oo aan waligood waxba maxaa la yiraahdaa wax soo saar aan sameyn hadda se markii la tusay inay wax soo saaran karaan ama ay arkeen cashirkaas oo na soo maray sanadkan bilowgiisii ay dhacday marxalada badan oo lagu farxo inay na tusaan tiina alxamdulillah ilaahay uu nagu guuleeyay waxaan rajaynayaa in dadkeena ummadeena ay hadda kadib xoogooda ilaahay uu tuso guud ahaan gobolkan daawo waxaa qorshe ahaan u yaalay inay soo saaraan ama ay beeraan dhul dhan 4760 hektar iyo 200 oo hektar oo calafka xoolaha laga soo saaray oo isugu jiro dalaga asaga oo isugu jiro qaybaha kala gedinaya dalaga sida freeleyda geed miroodka iyo khudaarta guud ahaan hadda waxaan ku sugnahay degmada Mooyaale waxaan soo kormeernay beerihii iyo goobihii beeraha dalaga laga soo saaray ee degmooyinka Mubaarak Hudeed iyo Mooyaale gudahaan qorshihii gobolka u yaalay marka la eego iyo actualka waxa ay sameeyeen waqti xadirkan statuska ay marayaan marka la soo fiiriyo aad buu u fiican yahay dhulka la diyaariyay waxay qaateen commitment ama go'aan fiican bay qaateen ilaa dhul ku dhow saddexda degmo ee soo marnay 8000 oo hektar dhul ku dhow ayaa la diyaariyay oo isugu jiro qaybta irrigationka iyo wabiga daawo laga faa'iideysanayo iyo qaybta dhul beereedka xareedda ku waraaba dhanka kale waxaa jirto oo aad u muhiim ah oo ku deesho mudan dad badan oo maal qabeena oo lacag haysto iyo qaybo badan oo kamid ah hogaaminta gobolka in ay sameeyeen nidaamkan wax soo saarka ay xoog uga qayb qaadanayaan dhinaca kale waxa ka hadlay gudoomiyaha maamulka degmada Mooyaale mudane Bishaar Aadan Kiyaato qorshaha degmadu guud ahaan waa 3160 hektar buu ahaa inta la baneeyay waa 1694 hektar ayaa la baneeyay inta la beeray ee qorshaha hadda dalag iyo daryeel maadaama roob yaraantu ay jirto inta la beeray waa 918 hektar ayaa la beeray inta soo biqishay ama soo dhalatay waxa weeyaan waa 368 hektar bay ahayn 368 hektar beertan hadda aan dhex taaganahay ayaa kamid ah dhibaatada jirtana waa roob la'aan kolley beerihii inta hadda soo biqishay ama soo baxay oo dhanba hadda way qalaleen beertana kamid ah kolley haddaan dhex taaganahay waxaa ku beeran zarciyo badan baa markaa beerahan lagu beeray geed miroodyadii baa kamid aha digir geley iyo geed miroodyo badan ayaa lagu beeray Bashiir Cabbaas Cali
warbaahinta deegaanka Soomaalida SRTV mooyaale.